shanta ciyaaryahan ee ugu imaan kala taariikhda kubadda cagta waa yaabantahay saax balse daawada FIFA ayaa waxay soo magacowday shanta ciyaaryahan ee ugu imaan kala taariikhda kubadda cagta intaan u gudagelin muuqaalka saaxib haddii aad tahay shakhsi taageero kubadda cagta ama xiiseeya soo fulo garee fiidiyogan loo saar waana mahadsan tahay kaalinta shanaad waxaa ku jira Rodri Rodri wuxuu ku jira ciyaartooyda iimaan kala waxaan lagu qiyaasayaa iimaankiisa 45%. kaalinta afraad waxaa ku jira Erling Haaland intuu iimaan dhaafay buu marayaa suwac waxaana iimaankiisa lagu qiyaasayaa 65%. kaalinta saddexaad waxaa ku jira Cristiano Ronaldo qadiyamada saax balse Ronaldo waa ciyaartooy iimaan la waxaana iimaankiisa lagu qiyaasayaa 78%. kaalinta labaad waxaa ku jira Neymar Jr Neymar Jr ayaa iimaankiisa lagu qiyaasayaa 95%. kaalinta koowaad waxaa ku jira Eden Hazard ayaa iimaankiisa lagu qiyaasayaa 100%.